السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوري هذا وقبلي منصورة هاي ما أنتو حربا هنا عايزين شيء موضوع قبلها الصوماليين أنت بدن إمارة نيجي فر بدن كدري معيان لعك مركان كهذا قبل فر بدن نيجي بقى دري معيان قبل فر بدن وحي دري معيان قول درو قبل بدن وحي دري معيان إن إمارة كوفش المين هبكي لعكتو ذو معمول الهاين أما هبكي مارة العقد ولا معامل تمي لهاين أما سيدي أبرا لهاين حريرك أيكي العقد كدحي سيدا درتد فيديو كان سوري دواد جنبركينا سوقاتا هدادن هورا إي أرق منصورة يالي دهادا قالها يان كهلا مالقشيغا يان كهلا وكسو دوينا سيدا عيدين شيغابا العقد ومهم قف كان وليها من سنين العقد إنيسا مهم إهين waxaan u maleynayaa dunidaan ku noolnaa kuma noolay meel kale ayuu joogaa sababta maanta oo waqtigu uu maaragtay xaaladda arka maraayo maanta oo 2025 la maraayo haddaad weli aaminsanta lacagtu inaysan muhiim ahayn waxaa u baahan tahay u maleynaa inaa meel inta fadhiisato aa iswaraysato who are you adigu kuma tahay sababta weliba haddaadba lacagba fahansaneyn macnaheeda ama muhiimka ay lacagta leedahay ama sidee lacagta loola macaamilaa ama sidee lacagtaada loo maareeyaa waa inaa meel inta fadhiisato su'aalo badan naftaada weydiiso waxaa ogaataa kulligeen bini aadan ayaa nahay ilaahay agtiisa kulligeen maaragtay waan ka simanahay ka insaan ahaan laakiin qof walbo waa darajada uu maaragtay iyo cibaadaadka uu sameeyo ay ku xirantay darajada uu ilaahay agtiisa ka uu maaragtay ka yahay ama adoon kasta siduu ilaahay ugu dhow yahay ayaa loo kala fadli badan yahay lacagta markay imaato qof kasta oo bini aadana wuxuu muhiimadiisu waxay tahay sidoo lacagtiisa u isticmaalo qof kasta oo bini aadana waa sidoo lacagta u isticmaalo haddaad fahanto habka lacagtaada u isticmaalaysid waxaad noqonaysaa qof guuleystay waxaa noqonaysaa qof maaragtay sakiino deganaan farxad maaragtay ka dhanka dhaqaalaha qofka gaaray maxaa yeelay maanta dhan hadduu walwal dhaqaalo ku haysto maanta dhan hadday lacagti kaa dhammaanayso maanta dhan haddaa maaragtay aadan wax maaragtay horu socda aada ka sameyneynin maanta dhan sidii maaragtay shala lasoo dhaafay maanta ay kuu tahay berri iyo maanta ay iskuu kaamid tahay dadka aaminsan aad tahay maaragtay wax walba waa qaaliyoobeen adduunka maciishada aa maaragtay qaladka dusha ka saartid wax walba adayaa wax gedi karo adduunyada dhanaa saasa oo mar walba aa eedeynta dad kaleeto dusha ka saarto ama meel kaleeto aa eedeynta dusha ka saartid adiga ayaa khasaaraha iskale waxaa ogaataa ilaa aa ogaatid ciladu meeshay ka jirto ama mushkiladu meeshay ka jirto ama dhibaatadu meeshay kaa haysato dhaqaalahaada horumarka ma gaaraysid lacagta sida loo maamulana ma baranaysid lacagta sida loo isticmaalana ma baranaysid haddaadan runta isku sheegin haddaadan fahmin cilada ku haysata halkay ka imaatay waay aa maanta dhan wax u gadane adoon fikirin adoon ogeyn inaa u baahantay in kale adoon xisaabtamin adoon waxaan ugu soo talagelin waay aa wax u gadane haddaadan su-aashaas isweydiinin waay markaa wax gadata aa habi u dareeme waay markaa wax gadata aa farxad u dareeme maxaa farxadda meel kale uga raadi weysa haddaada su-aalahaas isweydiinin oo mar allaale markii maaragtay ama stress yar ku qabto ama dhibaato yar meel kaa qabsato ama waayuu ay ku jeexjeexaan aa ku fikirto inaa maanta dhan wax gado inaa maanta dhan iska u socoto inaa maanta dhan iska noolaa u noolaato inaa bilaa xisaab ahaatid inaa dadka kaleeto say kuu arkayaan ka fikirtid inaa ra'yiga dadka kale ka fikirtid inaa dad xoolahaada inaa siiso kusoo jiidatid jacaylkooda iyo rabitaankooda iyo ammaantooda inaa maanta dhan inaa wax dhiibtid rabtid in lagugu ammaano waxaasoo dhan markaa isku aragtid ciladahaas oo dhan waa inaa meel inta fadhiisato aa iswaraysataa aniga maxaa iga qaldan aniga halkee u socdaa anigu horta yaan ahay waay aan rafaadkan iyo silacan iyo maaragtay dhibaatadan dhan maxaa ugu jiraa maxaa iga soo galaayo waxaa ogaataa maalinkaa naftaada anfacdo maalinkaa maaragtay qofteeda ka adag noqoto maalinkaadan qof bili aadana u baahnayn maalinkaa maaragtay waxaa rabto dhigan karto waxaa rabto cuni karto waxaa rabto gadan karto maalinkaas ayaa waxaa tahay qof isku filan
maanta markaadan ka walwalaynin inaad qofna wax weydiisato bili aadana oo koonka saaran oo maanta qof bili aadana aadan u baahnayn inuu wax ku siiyo ama inuu maarata biilkaa go-ay lacag yar aad ka qaadato ama inuu culays ku haysto kaa qaado ama inaad deyn lagugu yeeshay aad ka walwalaysid dad matid inaad duleysnaatid leh haddaad rabtid oo dullinimo ku noolaata adoo dhaqaalo ku soo galo adoo ilaahay nimco badan ku siiye adoo ilaahay barwaaqo badan ku siiye adoo maanta wax ku soo galaan inaa culayska intaas la eg iyo xanuunka intaas la eg aad dareento adaa u sababa adaa doortay inaad saas u noolaato adaa doortay inaad saas ahaatid adaa ma aragtay wax samee waaye midda kale markaa wax gadanaysid waxaa u fikiree waxaan 10 eero le waaye waxaan waa 3 eero le waaye waxaan 5 eero le waaye 20 eero ma lacaga okay weli ma ka fikirtay haddaa 50 mar wax min 10 eera bishii soo gadato 50 jeer kaliya haddaa soo gadato wax min 10 eero ah 500 eero maroosaa bishii haddaa 4 mar 5 mar soo gadatid wax min 20 eero 3 mar kaliya haddaa soo gadatid 60 euro maroosaa 4 mar haddaa soo gadatid 80 eero maroosaa 5 mar haddaa soo gadato 100 eero maroosaa saas ma u xisaabtanta inaa u fikirtid waxaan yar isku geey wax weynay noqonayaan haddaan wax walba dhahan waxaan waa lacag yar waxaan waxba maahan waxaan qiimo maahan tusaale ahaan dukaanka Lidl-ka anoo ka adeeganayo ayaa waxaan soo qaatay yoogar la soo jabshay yoogarka marka marmara waxaan isdhahaa iska dhaaf waxaan dhib ma lahane awalba 1 euro iyo 50 sent waa anoo mansuur waa isdhahaa marmar intaa fiirfiirinaya intaa maaragtay saf labaad galay iyo laakiin maanta waxaan sameeyay waa arkay 10% soo jibiyay inaysan iga jarin 20 sent ii soo celiyeen 20 senti ani hadduu maanta 5 senti iga dhimanta dukaanku iima cafinayo qofka dukaankan gadaayo asaga mushaar uu ka qaataa dukaankan asi iskama leh laakiin ana hadee 5 senti iga dhimanta ma ii cafinayo dukaanka ninka iska leh shaqaalihiisa markuu muqtamarka u qabanayo ama markuu maarta khibrad kordhinta u sameynayo ma dhaho qofkan customer joogto waaye 5 euro hadee ka dhimanta ha loo dhaafo ma dhahayo sidaa darteed aniga inaa mar labaad saf galo oo 20 senti soo ceshto of course markaas xoolo weyn iima goyso 20 senti laakiin haddana waa lacag hadday iga dhiman tahaba waa laga reebana alaabta meeqa maraa alaab u dhigay 10 senti iyo 5 senti iyo 30 senti oo iga dhimanaatay sidaa darteed mar walba waa inaa shilinka qiimihiisa fahantaa haddaada shilinka qiimihiisa fahmin midka weyn ma fahmaysid haddaada midda yar aadan farqiga u dhaxeeyo fahmin midda weyn ma baranaysid sidaa darteed mar walba aan isku dayno inaan shilinka qiimihiisa barano هذا مركز شيلينك قيميه صبرا هذا شيلينك قيميه صبرا مفهمي سا لباتنك سنتي واكاسا سيدا سويا لا وجدي ما هنو كاميرا صفي عو ما قبناس ولا 20 سنتي تكانك هذا تقو 20 سنتي بعتا اي مغويدو هذا بعد وحي كدغين بعد هذا وحي كدغين 40 سنتي بعد وحي كدغين 40 سنتي لكن tusaale bacdaas hadaan 35 senti haysto oo 5 senti iga dhiman tahay tusaale hadaan haysto waxaan haystaaba 20 senti lagu daro 10 senti lagu daro 5 senti 40 iga dhiman ma bacdaas waa ka soo tagaan qof bil aadan oo iga gaday male hadaadan marka shilinkaas yar macnihiisa aada baranin midda weyn ma baranaysid 50 euro ma baranaysid $100 ma baranaysid hadaada tan fahmin tan ma fahmaysid haddaadan tan yaroo gaduudan fahmin tan weyna ma fahmaysid dhibaatada marka maanta ugu badan oo gabadha Soomaaliyeed haysato $100 50 euro iyo 20 senti waa iskugu mid agteeda iyo 2 euro waa iskugu mid gabdho fara badan dhibkaas haysto waxaan ha fiirin yaraanteeda tanna ha fiirin weyninkeeda tanna ha fiirin qiimaha ay ku fadhiso hadda aniga uma mansuur ahaan $100 waa $100 agteeda ka tahay $100 ay agteeda ka tahay meesha ana hadda aan joogo wax badan kama goyso laakiin dad waxaa jira maanta $100 bil dhan ay biilkooda noqonayso laakiin waa inaa ogaadaa $100 markaan 100 kala ku daro saas waxaan ku haystaa $200 markaan 100 saddexaad ku daro saas waxaan ku haystaa $300 50 euro markaan 50 euro kala ku daro saas waxaan ku haystaa 100 euro هذا معناها فهمين كمعنى أهان هذا فهمين
lacagtaada ma fahmaysid qiimaha ee leeda waxaan waa silsilad isku xiran waay midba miday kuu dhiibeen midda yar midda weynay kuu dhiibeen midda weyn midda yaray kuu dhiibeen isku day marka inaad silsiladan fahantay macnaheeda haddaadan silsiladan macnaheeda fahmin wax aa fahmi kartid male dhibaatada ugu weyn oo maanta na haysato markaa wax gadayno ama markaa wax dalbeeno gabdha hadda waxaa jiro adoo lacag keenaa wax gadane waxaa jiro deyman badan kalaarna ku deynsan kartaa waxaa ka dhigan kartaa bil kadib in lagu soo diro 3 bil kadib in lagu soo diro 30 bil kadib in lagu soo diro wixii oo deyn ama kaar deyna isticmaalaysa lacagaadan haysan maxaa ku fikiraysaa mushaara ii soo socdo ama lacaga ii soo dhaceyso jaa xoolihii ku soo socday aa sii deynsatay hadhow meeshas waa meesha uu maartay cariiriga kaaga imaanayo meeshas waa meesha bahdilka kaaga imaanayo meeshas waa meesha maartay culayska kaaga imaanayo meeshas waa meesha tuugsiga kaaga imaanayo inaa qof facaa wax weydiisatid inaa maanta oo bishu maartay ay 10 marayso ama 20 marayso ama 5 marayso ama 4 marayso aa 0 ahaatid inaa maanta dhan ka fikirtid inuu adeeg kaa go'o inaa maanta dhan ka fikirtid inaa maartay qof kaleeto wacdo oo dhahdo lacagtii ay iga dhamaatay isi ama dhaqaaliyaasaan iga ah ama Soomaaliya la iga soo wacay lacag iga dir maanta dhan inaa bilaakayd ahaatid dad badan ma rabaan inay dhaqaalo fara badan yeeshaan dad badan ma rabaan inay hanti sameystaan dad badan ma rabaan inay maalgashi sameeyaan laakiin muhiim waxa ah nolosha aasiga inaa isku filnaato tan horta soo toosi jana jartu way kala sareysaa dhaqaalahaadan yar marka habka loo maamulo baratid wax gadidaan fara badan marka iska dhaaftiin dukaamadan ahaabsanaysiin waxyaalahan maanta dhan aagadaysiin fiiri wax kasto dukaanka yaalo oo qurux badan yahay laakiin waxyaalo waxa jiro ku qurux badan inay dukaanka iska yaalaan oo gurigaada uusan u baahnayn ama boosba gurigaada uga baahnayn ama hadaa soo qaado gurigaada keenta aan waxba ku soo kordhinayn laakiin dukaankaas inay aad iska daawato iska daawo taawashada ma lacag ba iska daawo urisku ma lacag ba iska soo uri laakiin muhiim ma ahan wax walbood aragto gurigaada inaa keenta wax walba oo dukaanka ku aragto gurigaada inaa keento muhiim ma ahan wax walba oo dukaanka yaalana inaa gadato muhiim ma ahan laakiin waxa u baahanta waa inaa gadataa sidaa darteed isku daya maanta dhan waxaan aagadaysiin macna idinma soo kordhinaayo laakiin baahi marka imaato of course waa gadane waxaa u baahanta dantaa kugu qasbayso laakiin dharkan tirada badan shoppingkan tirada badan waxaan dhan maanta soo gadaysiin dukaan markaa gashaan hal shay adoo rabo 10 shay soo qaadanaysid isxakamee midda kale adoo dhaqaalaha ku fiican adoo maaragtay wax walba ku xisaabtamaayo adoo waxaan ku dhashilin dhulka kaaga dhicin oo mansuur 20 ka daran ha iska dhigin qof aan dhaqaale aqoonin sababtoo qofka dhaqaalaha yaqaano ama qofka wax dhigto ama qofka wax kaydsamo gabaray ma qarsoomi karo Soomaali waxay tiri shimbirkiisa la duulaa waxaa la yiri tuug intaada tuug dhinuka ana uma mansuur gabadha dhaqaalaha ku xun iyo gabadha dhaqaalaha ku fiican hadalkeeda iyo see u taale iyo wajigeeda iyo indhaheedan ka dareema hada maanta iga soo horbaxdo inaa dhaqaalo ku fiicanta inaa dhaqaalo ku xun tahay isla markaa aan waa ogaanaa sababta ana is aqaana labada waa soo maray markaan dhaqaalaha ku xumaay oon deynta raadi jiray oon tuugsan jirana waa ogasaan u aalay maanta oo kisteeda yar aan isku filnaysiyo budget samaystana waa isku jeedaa saa u aalo marka ma isqari karto quruxay ha isku dayin waxaad ahayn inaa iska dhigtid ha isku dayin waxaad ahayn inaa iska dhigtid ha isku dayin qof maanta tamay qof kale inaa shaati kale gashito ama kobo kale oon kuu galayn inaa isku dirqisid فيديو إلا أنت أنا دا كسو قارت وحن قاعد سنة إنا لايك سارتid waxaan ka codsanaa inaa comment ka bixisid waxaan ka codsanaa inaa dad badan u share gareysid YouTube-kayga dad badan ay ugu soo biiraan gabdho fara badan ee YouTube-kayga uga faa'iideystaan maadaama inta badan aan ka hadlo wax ka dumar ahaan anaka dan noogu jirto na anfacayo oo wax badan aan ka faa'iideyno videoga xig inta ku kulmi doono waa walaashin Umu Mansuur oo idin leh assalaamu calaykum wa rahmatullaahi